ma ogtahay Australia inay tahay meesha kaliya caalamka xoolaha la dhaqdo sida geela iyo farduhu ay duurjoog ka yihiin waxaana ku nool 1.2 milyan geel duurjoog ah ilaa aysan jirin mararka qaarna dawladdu waxay samaysaa olole lagu leynayo malaayiin geelan ah si loo yareeyo sidoo kalena waxa ku nool Australia fardo duurjoog ah ilaa aysan jirin yacni geelan iyo fardahan cid dhaqata raacada hilibkooda iyo caanahooda cunto oo cabtamaba jirtaba waxa la sheegaa reer Yurub marka ay tagaan qaaradda Australia iyo waddanka uusan dhisnayn wadooyin tareen uusan lahayn gaadiidna uusan lahayn haddaba waxay u baahdeen geel ay keenaan si gaadiid ay ugu noqdaan waxayna geelan ka kala keeneen waddamadii ay gumaysan jireen sida Soomaaliya iyo Jasiiratul Carab geel ayayna isticmaali jireen muddo dheer haddaba markii ay dhisteen wadooyin tareen gaadiidna ay heleen geeli ay iska daayeen sidaas ayuuna geeli duurka ku galay oo duurjoog ku noqday in ka badan malaayiin geel ah ayaana joogta saxaraha Australia cid lehna aysan jirin